السلام عليكم صاحبيال halkani waxaan idinkugu soo gudbinayaa xikmado xula oo ku saabsan aamuska iyo hadal yarida hadaba ka bogasho haboon ha caadaysan markasta qaylo maxaa yeelay qofka ku fahmaya wuxuu si buuxda u dhageysanayaa codkaaga balse uma baahna inaad cod sare kula hadasho sirtaadu waa ku daboolnaato aamusnaan maxaa yeelay aamusnaantu adiga waxay ku tahay raaxo sidoo kale dadka kalena raaxo ay u tahay weliba dadka kale aamusnaantaadu aad iyo aad ay muhiim ugu tahay maxaa yeelay waxaad ka ceshatay dhibkaaga aamusnaantu waa tijaabada iyo iskudayga ugu dambeeya ee wax loogu sheegi karo kuwana fahmi waayey markaynu hadlaynay aamusnaantu waa luuqadda kuwa xooggan waxaa suurtagal ah aamusnaantu inay samayso wuxuunan hadalku samayn karin waxaa kaloo suurtagal ah in fogaanshuhu daaweeyo arrimo uusan dawayn karin soo dhowaanshuhu qofka insaanka ah wuxuu u baahan yahay 2 sano si uu u barto hadalka sidoo kale wuxuu u baahan yahay 50 sano si uu u barto aamusnaanta aamusnaantu waa lagu daalayaa balse waa habka ugu fiican ee loogu jawaabo hadalka badan aamusnaantu mararka qaarkood micno uma ahan inaynu aqbalnay wax walba balse mararka qaar waxay macno u tahay inaynu ku daalnay fasiraadda badan hadalka badani wuxuu daliil u yahay daciiftinimada qalbiga aamusnaantuna waa haaf ka mid ah fahamka aamusnaantu waa luuqad ka xeel dheeraysa kelimadaha haddaba dooro luuqadda aamusnaanta haddii ay xuruuftu ku qiyaaneen maalin ma uusan ahaanin mid walboo deggani mid wax daneeya mid walboo aamusanna muusan ahaanin midaan waxna danayn degganaanta iyo aamusnaantana waxaa dhex ahaaday kun sheeko oo xigmadaysan waxaa jira dad si kastood u xumayso aamusnaanta wax kugu fahansiinaya dhabtii kuwaas ayaa mudan ixtiraam aniga isma beddelayo laakiin waxaan ka fogaanayaa cid walboonan garanaynin qiimahayga taasina ma ahan aamusnaan raaligelin ah mana ahan aamusnaan daal ah laakiinse waa nooc kaloo aamusnaanta ah taasi oo lagu magacaabo idinka ayaa leh noloshiina anigana taydaan leeyahay badanaa qofku wuxuu aamusaa goortii uu dareemo in hadalkiisa uusan waxba beddelaynin haddii aad ku hadasho kelimad iyada ayaa ku milkisay haddiise aad aamuso adiga ayaa milkiyey ogow inay aamusnaantu qiimo leedahay sababtoo ah hadallada qaar waxaa qaada hawada ama dabaylaha yacnii micno ma yeeshaan goortii lagu dhawaaqo kadib ugu dambayn waxaan ku leeyahay ha hadlin goortii ay kugu waajib tahay aamusnaan hana aamusin goortii uu waajib kugu yahay hadal qofka caqliga badanna wuxuu kala garanayaa goortii uu hadli lahaa iyo goortii uu aamusi lahaa